kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka xigashada wararka fadlan haddaad tahay booqashadii koowaad ee soo booqatay channelka fadlan subscribe saar soo kala gabalka furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xisaab badan ee maalin kasta halkan soo gelino fadlan sidoo kale muuqaalka la gare oo leegta nagu dhiirigeli ra'iisul wasaarihii muddo Soomaaliyeed ee Xasan Cali Khayre oo xilkii ay kala laabteen madaxda amba xildhibaanada aqalka sare ee dowladda Soomaaliya iyadoo goordhaweyta warkaas la soo sheegay in ay xildhibaanada aqalka sare ay cod kalsooni ay kala laabteen xilkii ummadda Soomaalidu hayay Xasan Cali Khayre iyadoo xilkii laga qaaday cod farutaaga iyadoo 170 xildhibaan ay farta taageen in ay xilkii kala laabteen halka qaar kalena ay diideen oo maroon dhashay isla markaana sideed kamid ah ay xilkii inuu si hayay ogolaadeen 170 xildhibaan ayaa sida lagu ansixiyay in xilkii laga laabtay Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarnimadii ummadda Soomaaliya hayay iyadoo waliba xildhibaanada ay codsadeen in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub oo ummadda Soomaaliyeed si gaarsiiya waqtiga ku meel gaarka ah ee doorashada la qaban doono isla markaana gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanku sida uu ku ansixiyay isla markaana uu codsaday inuu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed uu soo magacaabo xil cusub madaxweyne Farmaajo oo aqbalay go'aanka golaha shacabka ee kalsoonida kala noqoshada ra'iisul wasaaraha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa soo gaaray go'aanka ay xildhibaanada golaha shacabka codka kalsoonida kala noqdeen xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre madaxweynuhu wuxuu muhiim u arkay midnimada hay'adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan marxaladda aan ku jirno balse asagoo oo gudanaya waajibkiisa dastuuriga ah tixgelinaya awood dastuuriga ah ee golaha shacabka wuxuu aqbalay go'aanka golaha shacabka kala fogaanshaha xukuumadda iyo hay'adda sharciga dejinta waa qaysa horumarkii la sameeyay si taas loo daba qabtana waxaan go'aansaday inaan tixgeliyo codka golaha shacabka oo ah hay'adda aasaaska u ah qarannimadeena madaxweyne Farmaajo wuxuu si degdeg ah u soo magacaabayaa ra'iisul wasaare oo dhisa xukuumad dalkan ka saarta marxaladda kala guurka ah sina xoojisa adeegyada bulsho ee dalka madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu uga mahad celinayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre hawlkarnimadii uu muujiyay ummadii uu xilkan u hayay iyo wada tashigayagii wanaagsanayd ee uu la lahaa hay'adaha dowladda federaalka Soomaaliya isagoo oo u rajeynayo horumar iyo mustaqbal wanaagsan isagoo sidaas ku ansixiyay oo laga sugayo inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub ayaa uu ka aqbalay golaha shacabka sida ay soo jeediyeen isagoo oo dhowraya dastuurka u yaala shacabka madaxweyne Farmaajo ayaa sidaana ku aqbalay go'aanka golaha shacabka ee kalsoonida ay kala noqdeen ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo xilka markaa laga qaaday kadib markay xildhibaanada baarlamaanka mucaarad u badan mooshinka yihiin ay ku soo saareen isla markaana 170 ay gacanta ugu taageen inay xilka ka qaadaan iyagoo waliba ka codsaday inuu madaxweynuhu si degdeg ah u soo magacaabo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa maalmo ugu dambeeyay joogay maamul goboleedyada kulankii uga socday Dhuusamareeb isla markaana isagoo Dhuusamareeb ku sugan ayuu ku waabariisay in xilkii laga qaaday sidaa darteed lama oga khilaafka ka soo dhashay xilka laga qaaday sidoo kale waxaa la sugayaa cidda uu soo magacaabi doono madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo goordhow soo xiray kulankii maanta ee baarlamaanka ayaa shaaciyay in kalsoonidii lagala noqday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre Mursal oo hadlay kadib uu hareeyay kulanka maanta ee golaha shacabka ayaa sheegay inay xukuumadda kalsoonida kala noqdeen 170 mudane oo xildhibaanada kamid ah ayna diideen 8 xildhibaan isagoo oo tilmaamay in aysan jirin cid ka aamustay kadib codayn la geliyay gudoomiyaha ayaa ugu baaqay madaxweynaha inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub si loo dardargeliyo howlaha laga sugayo xukuumadda federaalka Soomaaliya sidoo kale gudoomiyaha Mursal
ayaa ku eedeeyay xukuumadda inay ku fashilantay doorashooyinka 2020-2021 maqaamka Muqdisho iyo dhamaystirka dastuurka. Sida ay hore u baahisay Caasimadda Online, waxaa Washington si degdeg ah loogu riday xukuumadda gadaal ka riixaysay guddoonka baarlamaanka iyo madaxtooyada. Si kastaba ha ahaatee, lama oga sida ay sharci ku noqon doonto kalsoonida kala noqoshada degdegga ah ee lagu sameeyay ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre xilli lagu jiro marxalad kala guur ah iyo marxalad adag oo doorashooyin ay ku soo wajahayeen dowladda Soomaaliya. Isla markaana guddoomiyaha ayaa sidaa ku ansixiyay. Haddaba waxaan idin xusuusinaa fadlan haddaad channelka ku cusub tahay inaad subscribe saartid, sidoo kale gabadha ka furtid, sidoo kale muuqaalka like saartid oo nagu dhiirigelisid like-da, oo la sii wadaagtid asxaabtooda, sii share garee.